sida hataa ii weydiisoo kale waay aniga dowladda mas-uuliyiinteedan ka mid ahaa marka dhacdo kastoo dowladda Soomaaliya khusayso qaar ka mid ah qayb waa ka noqon karaa okay marka Jubbaland teeda inaan qayb ka noqdo de shaqadeeda laga yaabaa inay sabab 2018 saan xogta ku hayo waxaa jiray kulan dhex maray adiga oo fahada oo ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan taliyihii nabad sugidda ahaa ama matalayay madaxweynaha qaranka Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda ugu sareeya laamaha amniga ee Kenya mid kamid ah kulankaas inuu ka dhacay Nairobi looga wada hadlay inaad Kenya ka dalbateen ka dowlad federaal ahaan arinta Jubbaland ee gudaha ah inay faragelinta ka dayso ay kala shaqeyso sidii Axmed Madoobe idinku oo khilaaf xiliga idin dhaxeeyay aad isku fahmi lahaydeen kulankaas ma dhacay kulankaas wuu jiraa aniga Axmed Madoobe inaan mas'uuliyiin Kenya la kulanay doodeedana ay ahayd inaan Kenyaanka u sheegaynay Soomaaliya arrimaheeda faraha ka qaada arinta Jubbaland faraha kala baxa faragelin Soomaaliya faraha kala baxa wixii aad Soomaaliya uga baahan tihiin xamar la soo xiriira dowladda dhexe kala soo xiriira Axmed Madoobe oo fadhiyana u sheegay waliba hatta waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmed Madoobe u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya احترامك iyo qadarinta iyo saaxiibtinimada uu muujinayo dawladda Kenya waxa ka mudnay dawladda Soomaaliya inuu muujiyo hadaba yaa keenay Soomaaliya yaa ku haya iyo jooga Jubbaland Axmed Madoobe laakiin waa madaxweyne dowlad goboleed oo yaa Soomaaliya keenay asagoo taangi Kenya saaran Buxmaayo yimid waxa uu maleysay inuu yahay nin doorasho ku yimid halka wax laga xoreynay oo ciidanka AMISOM ay kamid ahaayeen Kenya hada sheekooyinka moogtay waa isleeleeyeen hadii la israaciyana waa israaciyaan hadii la kala jarana waa la kala jaraya Axmed Madoobe sidiisba waa mashruuc ajnabi oo lagu beeray Soomaaliya Soomaaliyana ku nool hada si kale kugu dhigo Axmed Madoobe waa kansar siyaasadda Soomaaliya ku jira maalinta uu siyaasadda Soomaaliya meel uga baxo maalintaasina Soomaaliya hagaagaysa Axmed Madoobe waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu kamid yahay madaxda ugu xukunka dheer ee joogtay dowlad goboleedyada mana aha annagu ma hayno halka aad ugu yeertay kansar inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya 2018 kulankaas waxaan ogaanay xogta sida aad u sheegay si kale inay ahayd oo ah inaad ka wada hadasheen Kenya Axmed Madoobe inuu madaxweynaha dowlad goboleedka sii ahaado teeramka u bilaabanaya Agoosto 2019 idinkana uu idin fulinayo mashruuciina ku wajaha idinka markaa leeyahay dowladda federaalka ayaa ula jeedaa idin fulinayo mashruuciina ku wajahan 2021 doorashada inuu xildhibaanada idinka saacido sidaana ku soo heshiiseen ما يكون كهشيس كم دمانه خلافه كم دمانه أنه إسفهمنا سوكرة تجن هذه أدب حسن تاريخ ذا ديارة دي مقدشة مركان إمادي أو البورك صدقي أنت هو ذا صارنا وحرير كي وجرت الصومالية مركز سديك حرير كوجرت هذا كسوه شيء كي أنه إسخلافنا سوكرة تجن كي مركز الله كلنتي إن أي كعصتي إن يتكتنا سجان دعوة ضبط سيانا ملفك جبلان كوريتشيو مسحبة سياق الدون kulankaas siyaabo kala duwan marba kulankaas inaan ku soo qaado laakiin dawladda Kenya inay arinta badda rabtay in laga laabto arinta badda ay dawladda Soomaaliya ku pressure gareysay is not secret dadka dhan baa wada og in dawladda Soomaaliyeed u dhibaatooday kiiskaasna qof kasta oo Soomaaliya og waana sababta Axmed Madoobe Jubbaland loogu hayo dan Soomaaliya looguma hayo haddana uma joogo dan Soomaaliyeed waa eedayn weyn fahad eedaynta Axmed Madoobe anana Axmed Madoobe haddana lama joogo ee aad ugu yeertay inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya intii aad joogteen wax yar baan ku sheegayaa Axmed Madoobe madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waa la diray soo magac diineed wato madaxweyne Sheekh Shariif waa la diray soo magac diineed wato madaxweyne Xasan Sheekh Teeramkiisii hore waa la diray soo magac kale wato madaxweyne Farmaajo waa la diray soo magac kale wato Xasan Sheekh mar labaad la doortayna waa la diray doona intaas marka hadda anagu ka gardareen madaxweynaha kale ma soo gardarna Cabdiqaasim Ubaysi soo gaarin inta kale wuxuu ahaa dhibaato dawladda Soomaaliyeed jiritaankeeda kansar ku ah hadda anagu ka gardareen Xasan Sheekh kama gardareen Sheekh Shariif kama gardareen Cabdullaahi Yuusufna kama gardareen Xasan Sheekh hadda la doortayna uu dhibi doona taariikhdan ku sheegi doona shirkii 2018 Nairobi ka dhacay marad ka soo laabatay kadib waxa jiray ra'iisul wasaarihii xilligaas iyo adiga inaad tagteen Kismaayo markaa tagteen Axmed Madoobe inaad la kulanteen
si loo dhammaystiro wada hadalladiinii Nairobi sidaad sheegtay aad waa fashilmaatay laakiin waxaan haynaa xoga inaad tagteen oo aad tagteen Kismaayo oo aad la fariisateen Axmed Madoobe oo aad soo heshiiseen dibna aad u balanteen Muqdisho inuu yimaado isku daygii u dambeeyay buu ahaa inaan bal annaga Soomaali ahaan isku barsano waa run ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayraat tagay anigana wafdigiisaan ka mid ahaa 3 maalmood iyo 4 maalmood baan joognay markaan ka soo laabanay ka bacdi xamar buu asagana yimid wada hadalkeena wax macnaa ma dhaleen wax miraa ma dhaleen marka uu xamar yimid oo aad weydeen dantii aad lahaydeen waxaan maqalnay inaad isku daydeen inaad qabataan oo xirtaan madaxweynaha Jubbaland martiba uu noo ahaa qof marti ku ama xiriisa halka wasku ani Xasan Axmed Madoobe u martiyay أنا مرتي أمي وحير لها هلا كواس كده يدين حتى صورة قلمة وهبة دقن صومالي حتى معها مرتبة أو نقضي أنا جانا مرتبة ونون نقضي ومدحويني صومالي مرتوها رئيس الوزراء مرتوها سيكون عكرت قف مرتكو أنا حرت قولي مدحوينها قولوا كل جمال كل جنب ودقنا اسكت ضيق لكن هو داعي إن اسكت ضيدين إن حكسان وهالك كويسان أنت الدور رشيد جبلان عداعيسو ما دام هشيسكي ولا الخرافات ده بحاس دقن صومالي معهن أحمد أبو دانس دقالة إنه asagoo martino alama dagaalayno 2019 August isla Jubbaland ku jira doorashadii martiqaadka uu xamar ku yimid madaxweynaha u diray madaxweynuhu u yimid way wada hadleen way sheekaysteen waan soo tashanayaa buu yiri marka si ay ku imaan karto ani ma garanayo isku faham way marka faham la'aanta maxaa keenay maxaa waxa weyn ee idin dhaxeeyay ee aad isku haysan root dhacdada ugu weyn dan Soomaaliyeed waa la isku khilaafay مصلحة الصومالية اللي اسكو خلاف مصلحة جبلان تهلا أو دن صومالية مصلحة الصومالية كم جبلان هذه هل سؤال دان كو ديود إيجا جواب تقف كستو صوماليا هي إيجا جوابه واي لح مدحوين أولا درسين واي وكلي وجوجا لكن و دي أدون كانوا وايز بدلا رجين كايز بدلا مدحوين الصومالية بدلا مدحوين كينيا يز بدلا كو إثيوبيا بدلا دعي ولا صوت دورتي أحمد دورتي ولا صوت دورتي كمنا كمجو هذا إنه حكوا جوجا سيدا طبعا دورشة صندوق لا دقي ولا صوت دورتي دولتنا أقبل شيء سيدا لو دورتي وأنا قانا هلا كواض أقبل أنا مرة كان أدو قصلو حكم إذا مرة أحمد دورشة حرة وكشكل هلا كواض أقبل شيء نتيجة دورشة دولة الصومالية ويقبل مدحونا الصومالية صوت صاري إنه نتيجة دورشة أقونسين ما يمسو صاري من جيبوتي مركو آدي مدحونا مسو صاري وحصو صاري إنه لما سنة أو كمل جار أو سي سجوا أطرايا وده هذا الذي دورشة الفدرال كأني السعودان وبنتلان أي شرط كدقتي إني جبلان سوف ريسته ما أنت نوحنا مثلا جبل بنتلان إني كو خسارتي حرير كي جبلان لسه ما يستويس مدحونيال هراء أو حكم كسوم رئي سياسيين بدن لو كسجالي توان كي دور شدي مركي دعدي أحمد وبي هودات كهرتين والله دقاشين دقال كاس أنت أنا آدم كهر ديارة إذا إثيوبيا أي ليهين أيالو آدينيا اللي ذكوا آدينيا adiga fahdan malafka inaad haysay in dawladda Itoobiya laga soo kareeyo commando si ay Axmedobe u qabtaan oo weeraraan Kismaayo hawadana laga culiyay Axmedobe eedayntaas oo ay shirqool adoonaysa in dishaan ayuu marar badan sheegay maantay waa markii ugu horeysay aan fursad u helay su'aasha inaan ku weydiiyo ma saxba inaad ka shaqeysaan shirqool Axmedobe lagu dilay oo dawlad kale oo Ethiopiana oo Soomaaliya ka madax banaan oo waxba ka gelin ay soo adeegsataan fiiri caalam al-mu'amaraat وهي waxa ay sheegaysa anaga waxa fiican aan ka sheekeyno siyaasad caalam mu'amaraad marka waa imagination oo iska qiyaasa saadhici doonto qof iska wareeray oo kaligiis la sheekeysanaya waxa ku sheekeysan kara marka waxaan ay sheegaysa anu waxaan fahmaynaa ma ahan erayo culculusna waayaba marka dawlad Soomaaliyeedna saa uma shaqeyso institution qaranna saa uma shaqeeyo kala aragti duwanaanshaha waa mowduuc لكن هريدا ay isticmaalaysid erayo dawladnimo iyo qarannimo iyo dib u dhis iyo dal iyo saa looga shaqeeyo waxba kama jiraan inaad arintaas ku daydeen hada fikirkaas ma iman karaba aragti siyaasadeed waa gooni loolan siyaasadeed waa gooni laakiin sidaas mu'aamarada loo alifayo adduunyadana ma shaqeysaba هلا كيف فهد مدحوينيال hore iyo dad salsare iyo Axmed Madoobe oo ah sheegan uu dhibanayahay ayaa sheegay war sahlan ma cid la eedeynayna waa fahad asaga rabaa inuu cadeen keena hadda asaga rabaa inuu cadeen sheego dawladda Itoobiya Kismaayo joogaan marna kalamin waa isku dayeen in airport tagaan oo ay diyaaradaha soo dhaweeyaan maalintaas dhaqaaqaas waa jiray fiiri xiriirka Itoobiya iyo Axmedobe kala dhaxay taariikh dheer waay taas adiga la rabaa inaad baartid ciidamada Itoobiya waa joogaan ciidamada Kenya waa joogaan it's not secret Axmedobe isku dayeen sidii roobo inaad soo xirtaan waay maxaa soo xireenaa madaxweyne meel joogo maamul haystee
laakiin natiijada maamulkiisa adiga hadda dhaliilaya oo leh waa kansar oo ma aqoon هذا أساليب سياسية كلها معاملين أساليب ميليترية كلها معاملة سيكون إيمانه ومدحويني من الله دورته فردية أما وضع صح على دورته أما وضع خلدنا على دورته هو فردية axmedoobe dantiina markii siyaasiga ah ka weydeen 2020 dibidin dhiso in dagaal adag oo la fijabisa oo ilaa diyaaradaha in laga xiro in la go'doomiyo in diyaaradaha hawada ku jirta laga saaro raadaarka ilaa heerka la gaarteen masaalixda arinta diyaaradaha waxay khuseysay diyaarada ajnabi ah baa dalka si sharci darro ku soo galay qadigana marqaati baa ka tahay Soomaaliya marqaati ka tahay diyaarada sharci darro baa dalka imaanay kuwaas keenay in diyaaradaha la xiro لكن أحمدوه مركو ربا وبحاي مركو ربا وإيمانه هذا عدة دبعته لكل مسودات صوماليات قاعد قدومسين أنك هدف كنا وحوها ديارتها أجنبية شرع الدراسة ضل كو إيمانه إن لقى ممنوع مياد علسين وعلي نواجه جوجني قال بدنا جوجني ديارة وكوي من آدم بردوا على شرطي مالت على مسارك أحمدوه هو الصومالي سوق الشيء كانت من ذلك كينيا ديارة السنة وضع كدكتي سنة وضع كو بحضر حبك يكوي مادين حبكي لو علينا يباك الدونا waxay ku yimaadaan habay ka dhigayaan inay ciidamo amisom yihiin waji kale ku imaanayaan ana qabatayntii diyaaradeed ee Jubbaland saaray inay sax ahayd baadamsantahay waxna mogtahay waa sax waxna waa khalad oo mowduuc kale laakiin waxaan ka hadlayaa go'aanka waxa dhaliyay waxay ahayd hawadii Soomaaliya oo dal shisheeye si sharci darro ku soo galay axmedoobe dagaalkiisa su'aasha ugu dambaysa 2018 maalinta 15 May howlka ayuu ka campaign gareeyay waan idinka guuleystay isagoo oo madaxweyne Jubbaland waa jooga Fahad iyo Farmaajo iyo nabada nolol xukunka ka digeen wuu ka guuleystay soo wada barnaamij maxay dhib leedahay anaga mabaadiideennii waxaan aaminsanayn baan ku shaqeyneen waa aniga hadda kule waa kansar laakiin waa idinka guuleystay hadda siyaasadda Soomaaliya in laga badiyo ceeb ma aha khaladna ma aha doorashada mar baa gashaa oo guuleysan mar kale aad gali ma guuleysanaysid waa natural adduunka dhan bay ka dhacdaa waa maasan tahay Fahad Yaasiin waxaan galeynaa markan kiis kale oo xasaasi ah oo isla hay'adda NISA shaqadeeda ku saabsan waana kiiska sargaalad Ikraam Tahliil waxaan doonayaa inaan furo kiiskaas oo muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay eegayaan adiga Fahadana aad u tahay buddiga hay'adda NISA maadaama soo xukuntay waa kiiska maqnaanshaha sargaalada oo ah gabar ka tirsan hay'addan muddo ku siman sanad aan rag iyo ruux meel ay joogto ma nooshahay ma dhimatay aan cidna warahayn ehelkeedana kurba weyn ku haysa iyo dadka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan saameyn ugu leh kiiskan ayaan rabaa inaan furo waxa la aaminsan yahay in xogtiisa oo dhan aad hayso ma iga aqbalaysaa inaan ku weydiiyo adna iiga jawaabto sida saxda ah ee aad macluumaadkiisa u haysto soo dhaw